inkastoo aanu wax khasaare ah geysan dhulgariirkan xalay saqdii dhexe dhowr goor oo isku xigta gilgilay gudaha magaalada Boorama haddana waxaan meesha ka maqnayn inuu dadka kaga tagay raad saameyn ku leh kaasi oo isugu jira cabsi iyo walwal hor leh taasi oo ka muuqatay saaka subax dadweynuhu markii ay dareenkooda cabirayeen kala buur hoosteed baan degan waxaan moodaa buurtuna igu soo dumaysaa badan baan xalay saacadii dambe kaana dib oo meesha dhulka soo galgashay baan dareemay guriga jagagaga yiri kulku mar onkooda kale sameeyay maxay hayday nigi ma kana dawladna saas uu ku gelisay caruurtii baa qayrdo ooydayba oo maartay la saasay markii dambe leeyahay maxay dana ama saxbay la wadicin oo caruurtii la saasay wadin guriga lagu caruurtayna ana live soo jeedo tabacdi caruurtii baan soo gurtan dibadda u soo bax aniga caruurtii baa qaadan waa baan nagu dhaco xalay hurdo way nagu soo bixi way waxaa tani ka soo horjeeda meeshana aan ka maqnayn inay dadka qaar aaminsan yihiin in marka dhibaatooyinkan dabiiciga ah ay soo laalaabtaan ay hordhac u yihiin barwaaqo kale oo ka dambaysa taa hadduu ilaahay yiraahdo waxaan nimco un baan filaynaa maalinta dhulku noo gariiro roob badan baan noo tahay horta annagu waa reer Boorama laba ku dhigay dhaco barwaaqo dhacana waa nimcadii baa faraarka laba ku dhigay dhaco ayay ma taqaanay roob iyo barwaaqo galna xaalka sidan ah ayaa waxa kale oo xusid mudan inay meesha ka maqan tahay kaalintii dawladda isla markaana aanay jirin haba yaraatee cilmi baadhis iyo xog ururin ku aadan arrintan dhulgariirka ee soo laalaabanaysa waana taas mid ay dad badan dareensan yihiin intaas oo sanad dhulgariir ku soo dhacay magaalada ama hal la keeno ma taqaanay dadkii waxaan khibrad u lahaa ama bulshada asiin wax loo dhaqaajay fiican waxaan leenahay dadka ay qusaysana kullay hoos iyo hoos loo eega baan leenahay si kasta xaaladdu ha ahaatee marka dhulgariiro noocan oo kale ah ay dhacaan ayaa jiilka dambe waxa ay dib u xusuusisaa taariikh waayo hore ah iyo sannadihii sideedamaadkii oo dhulgariiro tiro badan oo dhimasho iyo khasaare ba'an geystay ay gudaha Boorama ku dhufteen waana tan sheekadii u dambaysay ee ku saabsan dhacdooyinkaasi markii ugu horeysay maqlaysiteetankii markii ugu horeysay Boorama ka bilaabnay waxay ahayd waqti casara marka waqtigaas oo kale iskuulkan boodhika camudad baan foomtu ka haayo wixii inay wax toosiyeen baan maalinta garanaya laakiin wixii toosiyeen fahmiyaa walaa bariga ilaa 40 guri buu dumiyay qofna ku dhintay kiyo kalena wali ilaahay ma tusin dib maana Abdullah Ali Yusuf Hon Cable TV Boorama